I'm sorry la dhaho hambalyadan uma hambalyeeyana waa ciilku markuu kaa bato meel xun buu kaa tuuraa adoo waxa iska arkaysaa أنا waxaan sameeyaa qosolkeeda ka dhameeyay naag ninkii Faisal 50000 la dhalatay ee sixiroolayda ahayd ee walaashiis ahayd ee kubro oo aniga isixirtay oo ninka markuu dacweynayay gurigeeda la iiga soo diray adreeskeeda uu ku qortay maxkamadda baa inaan qofku markuu ciishoodo oo wareero inuu dhiiqada lagu hadla galo anigu waxaan arkin kama sheekeeyo baan haween aniga iyo gabar Aasiya koodhaa la dhaho baa waxaan ku iri ina keen kubraan aadaynaayo kaal iscafinaya baan dhahayaa baan iri bar ayadaa dambi iga gashay ayadii ima lahan kaalay afciilku markuu kaa bato jahada kaalunta waxaa kala garan weydaa north iyo south iyo west iyo east meela u socotid baa garan waayeysa waa waalanaysa qof waalanoo kalaa taha markaasay waa naagtii isixirtay waa naagtii ninka igu dirtay waa naagtii markuu idacweynayay ku dhalisay inuu idacweeyo waa naagtii gurigeeda restrain orderka markuu iga soo qaadanayay gurigeeda adresska uga dhigtay oo walaashiis ahayd ee isixirtay oo ilu goysay oo meel walba iga jirtay ilaahay lugiyo lababa ka gooyay kow marka waa inaan kala aadna asiyo abba gaari weyn oo SUV aan wataa waa ordo thank you 20k ina gaarsiiseen iyo 100 waa gaarsiin kartaan so waa ogahay maanta wallahi markuu wiilkaas hadlay nabaradayda markaas waxay igu tiri gabadhii na cafiskaaga ma qaani maxaa dambiyo ka gasha oo ay ku cafiyeysa oo cafiska ugu dooranaysa ayadaa dambi ka gashay haddii iyadu na ilaahay jannadiisa adduunka khayrkiisa ay hor taagaysa ina keen Brooklyn Park baan naag ugu tagay soo cafin iyaduna saas taas ii doonto kale ii doontay si ku dhow oo wax saalax la dhaho Mareykan joogta baan gurigeeda tagay habababa waa soo orodna oo soo waayay habababa tii baan gurigeeda Barnfield qofkii Minnesota degan baa garanaya Barnfield bay degan tahay aniguna markaas waxaan deganahay dukaankaygii baan ka imid 24ka Brooklyn Park baan u gudbay Brooklyn Center baa gurigay ku yaala Barnfield baan u gudbay freeway-ga baan ku dhacay 35W maxaa soo dhan waxa idinku sheegayaa ma taqaanaa qofku markuu dulman yahay waa neef la gowracay geeda kama waabto so intaan gurigeeda tagnay gurigahooda waxay lahaayeen kaamiro qofka albaabka taagan laga arkay lahaayeen kaamirada bay iga arkeen say dhex waa naagtii inta video iska duubeen ayada iyo caruurteeda iyo gabar ay habaryar tahay oo reebicdiyaano ina Cumar Nuur Galleer la dhaho gabadhii hodan ahaydoo lagu dili jiray Mall of America lagu dili jiray mid walaasheeda iyo asagii oo gurigooda joogay inta video la duubaa la yiri million down mali sheekadii sangu iyo ruwaadoodii baa la igu qaaday waa dadkii saa aniga ii xumeynayay dadka anigu aan u doonanayo Barnfield u aadayo orgooda buqbuqa inta la iga fiiriyay oo kan video la iga fiiriyaa waxa la yiri tii baa taagan maxaan u socday cafis maxaa cafiskooda ku falaayay maxaa maanta uga sheekeynaya maanta waa ka hiil gareeyay ninka la yiraahdo CKna waxa ku dhacay waxa soo kale hooyo waagaad hooyay oran jirtay sidaad hooyo ii lahayd baan anigu maanta hooyo kuugu aha wiil aana ima hayso wiilay ma ihi oo wiilal baan dhalay anigu hooyo waxaan ku leeyahay waa xurmo hooyadii ku dhashay oo caloosheeda aad ka soo baxdeen ma ihi laakiin waan kugu xurmaynayaa shiina culay shalay markaan lahaa saas ereyga aan lahaana ma taqaanaayeeto meeshaasaan iska orordayo waxaan lahaa haddiiba anigu ma arag nin iigu hiiliya gabarnimo iigu hiiliya iyo nin baan kala tagnay iyo niman badan baan kala tagnay oo weligay nin ii hiiliya ma arag marka waxaan islahaa hadday gabdhahaas yararkaayo wax guurguursanaya uu u difaacayo uu gabadhaas reabtiga loo yahayba u hiiliyey tanna hadduu u hiiliyo kuwaasna waa u hiilinayaa baan ka wadi ee adiga xumaan aan kuu socday adiga aan kuu socday dadkaana si xun wax u sheeg ahaa haddana waxaan kuu soo hartay hadalkaas wuu kaa soo baxay laakiin ogow inuu kaaga soo baxay with nothing sida anigaba aan u orday oo cafiska u doontay naagtii aniga iga soo sixirtay dirir dhabe ee aakhira ii dirtay thank you na qaldaan marka waxaan kuu sheegayaa waxa kugu dhacay waxyaalahaas oo kale qabiil ma galaan qofka dulliga ah oo dadka dulma qofka dadka dulma ma wanaagsana
haddaad ugu hiilisid ina adeernimana meel gaari maysi marka ha la ogaado shiino qofkii ugu hiilinaya daaroodnimo ama ugu hiilinaya hartinimo ama ugu hiilinaya kablalaxnimo ama ugu hiilinaya warsangelinimo shiino waa dayuus guri dadow buu galay gabadhana dembi buu ka galay ninkeediina dembi buu ka galay ilmaha u dhalayna dembi buu ka galay waa saani waa nijaas waa xaaraami waa doqon waa faqiir dabakanaaxa shiina gus irbad waa faqiir dabakanaaxa weeyaan faqiirada dabakanaaxa dadka waa ku badan yahay faqiirada dabanaaxa daarood waa ku badan yahay asagaa kow ka ah kabtan ayuub baa laba ka ah waa faqiirada dabakanaaxa ah ee baraha bulshada xoolahay ka heleen xoolo ugu horreysay waa dabakanaaxiyo dadka ayagoo wax ahaan jiray dadka ayaga oo wax lahaan jiray anigu anoo wax lahaan jiraan baraha bulshada soo gala anoo maal adduunyo iyo hanti lahaan jiraan baraha bulshada soo galay anigu kuwaasoo kale la mid ma ihi kuwaan dadka ismooday fiyuuga maalintii aniga idaawan jirtay yaa maalintii marka idaawan jirtay 100,000 60,000 70,000 markaan lifeka ka baxo 30,000 40,000 idaawan jirtay kabtan ayuub afkiisa wuxuu iga yiri xataa facebook ma lahayn gabar walaashay dad baan la fiirfiirsan jiray bay tusnaa yar maxay tiri maanta maxay maamulin maanta afkiisa iga yiri wallaahi anigu beenta aqoonin yaa walaashay oo nairobi joogtuu yiri waqtigaas baa ii soo samaysay facebooka ii soo samaysay xaba aniga hay ugu soo yaacinina dhilla iyo dhuqxun iyo dhami jaalay iyo waxaas adigu aad la orday idinka leeyahay dhaha baan idiri ku difaaci maayo anigu dulmi ku difaaci maayo shiina gus irbad anigu dulmi ku difaaci maayo si kayna hawiye ku riixi maayo qof allaaliyo qofkii dulmana anigu waa u hadlaa dadka victimka baan u hadlaa samaynaa garanin shiino ummadda allaha ka qabto shiino ilmahaas garacnimada uu ku dhalay ilmo ka dambaysa alla uusa aabba oranin shiino intaasoo gabdhood baa u joogta dulmi buu shaqaystay habartii hooyadiisa doodiisana waa firiqo gabadhii hooyadeed haruurka tuntaana ayana haadintay baran hooyadeed nin reer bicdiyahana wasi jiray wiilna wuu ka dhalay nacallaa jinsiyadiina ku yar anigama asxaan ima samaysaan seeftu bannaanka oo gaalkacyo lagu degay wallaahawsan xalaal kugu wasina markuu kaa dhargay buu ilmaha kaa dhalay ama inta isa kaa mehersaday buu qaaday baallahan kaa rifaayaa firiqadu dhasho dhiladaa dhashay yes mindul gubtay kama naxaan ku iri siilkan waa ii qalalay aniga gabadhaadaa qoyan oo dhalaysa gabadhaaduna waa firiqo adna firiqaadahay gabadhii hooyadeed haruurka tuntaa 411keeda hala raadiyo thank you yeah 411keeda hooyadeed hala keeno ayada waa haynaay hooyadeed meeqa nin baa wastay hooyadeed meeqay soo wasta meeqaa ka soo qoday maxay ilmaha ku dhasha faktigaa laga hadlaya ninkii keenay ee manaan aabbaheed markuu keenay yurub markuu keenay firiqo ilaa ma firisan kartee waa firiqe hooyadeeday ka baratay ayadoo nin qaba inay nin kale ka daba ordo ninay iska furtay oo ciise maxamuudaho qanjirada ka garaaci jiray waa manaan hooyadeedi ninkii markuu keenay yurub bay intay iska furtay kii hore keensata doonata soo waa firiqo kiibaa hadda qaba so gurigiina waxaa loo galay aniga waa horaa gurigayga la galay soo moogid laga cabaadsiiyey laakiin gabadhii joogi maysida futa gus irbadow ku dhufo hooyadeedna ilaa firiqaa tahayo fadhihi maysida hooyadeedoo ninku ka maqan yahay ku dhufo ka dhaqaaq baan ku yidhi baastar dhalay shiino gus irbad haddaana baallaha kaa rifinin oo aanan ku karbaashinin maamulyin layma dhaho xasbuna allah wa nimca alwakiila laa ilaaha illaa anta subxaanaka inni kuntu min adaalimiin waxaa faksuusiinta ah ee firiqooyinka ah ee baraha bulshada ku jira ee qashinka ah midkaan madaxa kabaalalaho ayuub kaarla la dhaha iyo inta wacala qabiilkay doonaan ha u dhasheenee firiqannimada ku heshiiyey iyo fataalnimada iyo gabdhaha inay fuulfuulaan waa in social mediaha laga wada qabtaa ku haya waraa kulligood oo dhan waa wada fadarooyin sikay haddaad dhihi kartid anigu markaan dhahahayey
raali markaan dhahayay congratulation ma ogeyno stresski baa iga batay haddaad leedahay oo baraha bulshada kulla ma u malayna inaan dhihi karside yaa ma u malayna inaad dhahayside maba dhihi karsida waa baqaysaa qof anigoo kale ayo geesiya waxaasoo kala dhihi kara jabka ku dhacay qof baa ka sheekayn kara waayo waa qof geesi ah adaawo esiga aan daarta inay koronta ku jirto so baalaha la yska rifaaya hawiye aniga shalay iyo cayrsanayo markaan hawiye caayaye yaa maantayto thank you maantayto waxay u baahan yahay ninkaas la yidhaahdo ck waa wiil yaroo wanaagsan I don't care aniga kulligood ima jecla laakiin aniga xaqa ay jecel cadaaladda ay jecel ilaahay baa ay jecel